habka akhrinta qoraalka khudbadii waad qortay si fiican u diyaarsay talo sidaad u akhriyaysaa dhowr siyood baa loo akhriyaa weedhaha hadalka oo dhammaystiran khudbadii baad xaraf u akhriyaysaa oo warqadda hortaada taalaad ka akhriyaysaa waana habka ugu liita ee wax la sameeyo qodobada iyo ciwaanada khudbadii sida quraanka intaad soo qaybto ayaa waxa aad soo diyaarsanaysaa cinwaanada ugu muhiimsan dabeedna cinwaan kastaba ila waad garanaysaa waxa hoos yaala ku abtirsanaya waxaad samaynaysaa wad akhriyaysaa marka cinwaankan wuxuu ku xasuusinayaa kolba halkaad hadda maraysid marka tusaale ahaan kale qabyaaladii markaad ka hadlaysay waa maxay qabyaaladii waa ciwaankii intaas ma ku qoran waxay tay iyo wixii laga yiri iyo waxa soo dhan dushaad ka soo qaybtay saameynta ku leedahay dhaqaalaha waa ciwaankii uu ku xasuusiyo wixii xog ku hoos jiray la waad qaybsantay saasaad u akhriyaysaa waa habka ugu fiican ee la sameeyo kaararka yaryar ee cas iyaguna waa kaard yar oo kooban wixii qodob ee israaci karaba hal kaard baad ku qoraysaa dabeedna markuu intaas ka dhamaataba kaarka xagga dambe gelinaysaa mid kale ku soo baxaya marka inta badan hanaanka iyo israaca qodobada hadalka ayaa lagu kala cadeeyaa siday u kala horeeyaan baa kaarka loo kala horeysiinaya siday isu raaci karaan kaarka waa lagu wada qoriyaa